dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay weerarkii isbiidaaminta ahaa ee lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug kaas oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo. warqad ka soo baxday dowladda ayaa u qorneed sidan: dowladda Soomaaliya waxay cambaareenaysaa qaraxii bahalnimada ahaa ee ka dhacay Gaalkacyo kaas oo lagu dilay dad shacab ah iyo gudoomiyihii gobolka Mudug. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ku hadlayay magaca dowladda ayaa sheegay in murugada iyo tiiraanyada uu la qaybsanayo shacabka magaalada Gaalkacyo ee maanta weerarka argagixisada ah la beegsaday. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ayaa si kullu cambaareeyay weerarkaas bahalnimada ah ee lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug Allah u naxariistay Axmed Muuse. dowladda Soomaaliya waxay tacsiid tiiraanyada u diraysaa qoyska iyo eheladii ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkaasi, waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ugu baaqaysaa in meel looga soo wada horjeesto la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada oo aanan cidna u turinin. sidaas ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo markaasi ka hadlisay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo mas'uuliyadiisa ay sheegteen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Abbas Hussein, Honkebel TV, Muqdisho. shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay eheladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga iDahab.